shiicadu waa firqo aad iyo aad u shar badan oo islaamka iyo muslimiintana cadaawad fara badan u qabto iyadoo isku qarinaysa shaatiga islaamka iyo islaamnimo. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacdah. walaalayaal, halkan waxaan ka soo jeedinaynaa casharo tixano ah hadduu ilaahay yiraahdo oo ku saabsan shiicada raafidada ah. sababtoo ah shiicadu waa firqo aad iyo aad u shar badan oo islaamka iyo muslimiintana cadaawad fara badan u qabto iyadoo isku qarinaysa shaatiga islaamka iyo islaamnimo. iyagoo magaca islaamka muujisanayo ayay haddana islaamkii dabar jarayaan. in badan oo annaga naga midana arrintaasi jaahil baan ka naho warka ma hayno. waxaa laga yaabaa in ay kuu joogto adiga shiicada waa muslimiinta qayb ka mid ah. muslimiinta waxaa loo qeybiyaa sunniyiin iyo shiico. shiicada raafidada ah marka aad aragto waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo meesha ay ka soo bilowdeen ayaad ogaanaysaa xaqiiqdooda. sababta keentay marka inaan soo jeedino arrimahan waa maxay? waa dhowr arrin. waa marka koobaadi in ay noqoto dadka muslimiinta in loo cadeeyo dhibaatooyinka iyo khatarta ay leedahay shiicada si aysan ugu dagmin. min baab caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi. sharta waan gartay inaan shar sameeyo sharrow noqdo uma sameynino uma garan, laakiin inaan iska ilaaliyo. waman lam yacrif shara, qofka aan sharta garanin oo sharta aan aqoonsanin oo khayrka aan ka garanin yaqac fiihi, waa ku dhacayaa. qofka waxaa laga rabaa inuu waxa xunna garto si uu iskaga ilaaliyo, waxa fiicanna uu garto si uu ugu dadaalo. sidoo kale waxaan maqalnaa maalmahan dad ka mida Soomaalida oo dhahaya waxaan nahay taageerada ahlu beytka, shiicaan nahay, shiicaan faafinaynaa, sida ninka halkan ka muuqanayo laleeyahay Maxamed Cali Jabarti oo kale iyo kuwa asaga lamida oo Soomaaliya oo sunta iyo khatarta shiicada xambaarsan muslimiintiina u soo dusinaya khatarteeda. marka in aan isku baraarujino laazim ayay noqotay. firqadan shiicada ah waxaa aas-aasay nin la yiraahdo Cabdullaahi ibnu Saba oo yahuudi ahaa. xilligii Cuthmaan ibn Cafaan khilaafadiisa dabaqyaaqadeedii aakhirkeedii ayuu wuxuu muujistay islaam, magaca islaamnimada iyo islaamnimo muujistay si uu iskugu qariyo islaamnimada oo muslimiinta iskugu qariyo. yahuudi ayuu ahaa ninkaas oo zindiiqa gaalnimadiisa xambaarsan. asaga ayaa aas-aasay sida macruufka ah oo la yaqaano culamada muslimiinta sunniyiinta iyo xataa kuwa shiicada ay sheegayaan. ninkaasi waxyaabaha uu isku qariyo waxaa ka mid ahaa in la ilaaliyo xaqa ahlu beytka. ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa in xaqooda la ilaaliyo. ahlu beytkana xaqooda in la ilaaliyo waa diini, waa arrin diiniya oo nagala rabo inaan ixtiraamno oo xaqooda ilaalino, waa nagala rabo oo jeclaano. sidoo kale waxyaabaha uu isku qarinayo waxaa ka mid ah in la jeclaado ahlu beytka. waxyaabaha marka uu la yimid oo hadda ay ku taagan tahay shiicada waxaa ka mid ah in cali uu yahay imaamnimada cali inay ahayd arrin mansuusa oo qur-aanka uu cadeeyey, nabigana calayhi salaatu wasalaam uu cadeeyey. sidoo kale waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahaa shiicadan hadda ay ku taagan tahay mabaadidooda ka mid ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam cali u dardaarmay oo nabiga markuu tagay calayhi salaatu wasalaam ummadda in cali uu sii maamulo oo cali uu dhaxlo ay ahayd. arrintaas inay jirta ayuu sheegay. sidoo kale waxyaabaha uu keenay waxaa ka mid ahaa oo mabaadida shiicada ka mid a in la lacnado Abubakar iyo Cumar iyo Cuthmaan, in la lacnado, lacnad lagu tuuro, berina laga noqdo. isagaa bilaabay. shiicadana hadda waa ku taagan tahay in cali uu soo noqonayo oo uu nool yahay oo waxa uu Allah uu kor yeelay sida nabi Ciise uuna soo noqonay aakhiru zamaanka mahdiga ka hor. waa la gartay. waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ahaa in cali agtiisa uu ahaa cilmi gooniya, cilmi gaara inuu hayay cali oo ummadda kale aysan haynin oo ahlu beytka gaar ku ah. calina intii uu noolaa ayaa la weydiiyey arrintaas. waxaa la yidhi cali bal ka waran, ma jirtaa wax nabigu idinku gaar yeelay? cali wuxuu yidhi maya, qur-aankaas iyo sunnada mooye wax kaloo noo gaara annaga ma jiran ayuu yidhi. marka arrinkaasi dad fara badan ayaa ku dagmay, waa la raacay, arrinkaas waa lagu dagmay, dad fara badanaa ku sirmay. marka dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon diintooda inay bartaan oo ay ka warhayaan waxa diintooda dhibaatada ku ah iyo waxa diinta dabar jaraya. si guud culamada muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in ay ka hadlaan shiicada dhibaatooyinkooda, ay ummadda u cadeeyaan si dadka juhalada oo iska masaakiinta aysan ugu sirmin.
sidaas ayaan leenahay. ninkan ay leeyihiin Maxamed Cali Jabarti oo asagana xambaarsan sumumtan iyo suntan khatarta ah oo dilaaga ah, waxaan leenahay niyow haddii aad og tahay arrinta aad xambaarsan tahay waa dhibaato, haddaadan ogeyna waa dhibaato kale. haddii aadan ogeyn marka fa in kunta laa tadri fatilka musiibatun, haddaadan ogeyn waxa aad xambaarsan tahay oo islaamka dabarjarka ku ah waa dhibaato weyn oo shiicanimada ay kula tahay ahlu beedka in la jeclaado, nabiga in la jeclaado, yaa waxyaabahaas haddii ay kula tahay waa dhibaato. haddii aad og tahay waxa aad xambaarsan tahayna musiibada waa kasii weyntaa taas. marka waxaan leenahay culimada muslimiinta si guud ummadda ha loo digo oo shiicada dhibaatadeeda ha loo cadeeyo, waxa ay qabaan ummadda ha loo sheego si aysan ugu soo dusin shiicanimada si sahlan. waxay sheegaan shiicada in ay raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin ahlu beydka ayaga. ahlu beydkana waxa dilay oo khatarta geliyay oo dagay oo khiyaano waa ayaga, sida ay cadeynayaan waxa weeye ahlu beydka ayagaba. marka waa ummad shar badan oo dhib badan oo islaamka inay dabar jaraan u taagan. insha allahu tacaala xalaqaadka soo socda waxaan ku caday doonaa waxyaabaha ay aaminsan yihiin oo khuraafaadka ah oo diinta dabarjarka ku ah hadduu ilaahay yiraahdo. wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.